عبد جود أبيس وكميدا ورياش وقو عانسن gudahaan geyga Soomaalida oo si gaar ah u la hadlayay telefishinka Star magaalada Hargeysa ayaa waxa uu soo bandhigay cadeymo ay dawladda Djibouti ugu soo hanjabtay waa sida uu hadalkiisa u dhigay waana kan isagoo arintaasi ugu horeyn ka hadlaya saaxiib aad baad mahadsantahay waxa aan saaka mar ahayd 8:32 daqiiqadood saacadeena Hargeysa iyo 11:58 daqiiqadood ساعدين هرجيسة الله يسوق على دري لبا فريمات أو واتساب كا أورنتي دجبوتي لا يجي صوت دري أو مركا لا يجوا هنشبيو رد كنا وسيدي دون تانو واني دسيي للي هاي مركا عملنا كاس وهلاي حقوق أما سرع ولوس أو كهلاي سبدو كدجبوتي أو مركا يجوا هنشبيو إن هرجيسة لا يجوا دليو أما قاري لا يشيلسين أيو أما حبضت لا يقول لفتو مقتى إذا لا دون صار أيو عد كلنا أنا يدليان أنا عبد جود هان أي يدليان تذكرت سومالي أو بو يدو شقالة إلا شقية هنا أي العقد يدنا وكل شقية بودي أما يسمع العلوم قال لا شقية إدريس عمر قال لا أياد قاعدين كل هاي مركا اسمع العمر قال لك كما حردتك أو دلاه ولا يبلي يطلع عين فمين لا كل عرنا يا ولا هاي وحن هلا وركا حلي مكذن وذلك عمر بشير وحالي والدكتاتورية دي شوقي ماشي انتو لبا سنوات انتو انقلاب كو قبصدين انقلاب laga qaaday kii kana laga sii qaaday anigu dictator baan sheegay hantida reer Djibouti ee maqan na waan sheegay aailada ku amar ku taaglaysa meeshana waan sheegay intaas midna been ma adduunka xitaa qiraaya maxaadin Umar Geelo wax uga hadashay ba aniga sidoorka in Umar Geelo ii soo diriyay sidoonkiisa oo leeyahay Hargeysa ku dil war dhagaxyo soo daaday waxba la hadhinay anigu Hargeysaan joogaa Somaliland baan joogaa نسلا كو عبسده ميه نفتو مر بيبخدا إلهي بمر قاده نابالو iyo misail balintaad igu soo hogaamisay imika satellite misail gaadhig bal aniga madaxayga ka dhufo nisla ku cabsida meehi waa dictator Ismaaciil Umar Geele ana aaminsanta inuu dictator yahay aailadiisu meesha ka shaqeyso waxaana ku cadeynaya example hanjabaadani taradkan leeyahay Isaaq iyo Samaroon oo u shaqeeyay in Umar Geele oo reer Soomaaliland dhexdeeda ku gudlaayay si kale wuxuu dilaa islaali waan ku baqaya warnisla ku baqameeyay in la iibsadana ma ihi war maanta hadaan duray u dhinto waan aqaana godobteeda reer Soomaaliland halkay u raacayso hadii duray dilo ama aan iska u dhinto de codadkan imika la soo deynayad ka dareemaysa hada erey ma qaado maxaad ina Cismaan Geele Arab ugu hiilisay oo ina Cismaan Geele Arab yaanu haynin ka soo caray sida ka loo eriyay aan la doonaya maxaad uga hadashay أنا عثمان قال أنا بقدرتي أنا يطلع وأنا كهضية هدو دلمية هنا هدو دلمية سودنا وانقماني هدو دلمية هنا وأنا هضية إمي كذا نريد ما يلبس إن عمر قال إن عثمان قال عرب أنت هرجيس لك عيش بيت لقين ما يتو ما يدد بري إمي كذا أنا لا يهرنا وأنا إري محكمة لها شرع جوا حي كل يهم بقيد كل يهم وهالكذا لكن ما حد جوا هذا الشوارع إمي كانوا هضية إمي كا تو ما يدد بري إن لقاضو عقلي Djibouti ku haya uu ku haya lacagtiina uu haya halkan company uu ka sameeysanaya hadii ilaahay ilaahdo aniguna waan hadli intaan oo leesanteedu qoyan tahay wax qalada waan ka hadlay qaranka Djibouti baa la dhacay baan ma wax kalaani maamulkeena Umar Geele wax ka sheegay Djibouti wax ka sheegay yaan caay yaan maagay waxa la igu dilay qaranka sirdoonka Djibouti oo dhimay Hargeysa u yimaade ee fariimaha la igu soo dirayo film baan maqli jiray nin cowboyo filimka magaciisa garan maayo wuxuu haban malaya dabaarda agla aan magaranaysa good uu leeyahay intuu ninku u hanjabay isagoo baatir ku jira ayuu tooganaya markaas oo wuxuu if you want to shoot but don't talk boranaya war meelahan cabsi waa threatka ma ogtahay jir dictatorka do ever what you want samee waxa sameynayso ti ilaahayna meel bay taala laakiin sidoo kuma cabsado la iguna hanjabo maxaan kale oran karaa maanta hadii hid ilaahay aan u dhinto godobtayda Somaliland way taqaan halkay u raacayso waa codad xaqiijinaya qaabkii loogu soo hanjabay Cabdi Good Abees oo sida codka lagu sheegay in dawladda Djibouti lacag ku bixiso dad jooga Somaliland sirdoonka Djibouti oo dhamaha sirdoonka Djibouti Hargeysa wada joogaysa u dhanyiin waliba waqti xaadirka ma ku sheegay sirdoon kalena ma aha وسمرون إلى إساق والله وبالله وتالله كتاب جامعة كل عرها سمرون إلى إساق
hargeysa wada joogaan maanta kuwada dhanyihiin magaran waxaan kuu sheegaya anigu sirtaa waa helay wallaahi balkuma sheegay xalay baa laga sheekeynaya foga adiga gaar ahaan is ilaali horta haddaad gashay laakiin sax walaalkaabaa lagu soo maray walaalka ayna good adees baa lagu soo dhex maray baan kudho biyo hagaaga loo dhiibi in ismaaciil cumar kama hadha qofka isagoo ka argoosta maahina magaran waxaa doontaba ku hadashay cabdigoodow isilaali waxaa doontaba ku hadashay isilaali baan ku ilaa odayii dhintay idris cumar caydaya isilaali wala nisaq ma xishootiin leen isaaq oo dhan baa u shaqeeya isilaali lacagtayadaa loogu shaqeeyaaye isilaali sax intaa baa ku odhanayaano wallaahi wabilaahi watallaahi isilaali isaaq oo dhan baa u shaqeeya warkaaga anu kuma daawo ninbaa saa lahayo sayro maxay ama information aan heleeyaane isilaali sax taa ogsoonow inuu isaaq oo dhan u shaqeeyo taa shaaqeedihiina u shaqeeya ismaaciil cumar saabadu garan oo bashaar qaata dhanka sirdoonka ee isilaali baan ku idhaano xabad baa kuga fakara ma baabuur baa lagu jirsiina isilaali amarya adhowna agsidaan maa lawada lagu duldhigi magtaadana nin laakiin maamul haya ay iyo wanaagba wuu u koray kursiga haddaan idhi waa dictator oo 4 madaxweynaha Soomaaliland iska bedelayeen ayuu isagu taagnaa ma beentayba inuu sharciga bedeshay oo doorasho ku yimid ma beentayba aanu doorasho ku imanin adeerkii xasan gulad abtidoon keenay meesha de ummadda ilaahay oo dhan baa og war waxaana waliba waxba ka sheegin 24 nin oo containerka ku riday markii SNM dagaalamaysa ee Djibouti ku dhintay jinacsi meesha lagu yiraahdo la yiraahdo doqoshi 90 nin ee isku reerka ahaa ee korneelkii ku jiray ee lagu aasay ee ilaa imika xabaal wadareediya ayaanu soo wadnaa iyo halkii ku aasanayno sawir ka soo qaadnay Abdigood Abees ayaa sheegay halka laga raacay ee sababtay in sirdoonka dawladda Djibouti ay u soo hanjabaan hada ay sheegi soo naga nimka aragnay laba program baa sameeyay markuu Cumar Geelle uu fanaaniinta kaxeeyay dawladda jaarkana inuu Soomaaliya iyo isku xilkeen iyo walaaltinimadeeni bariga hore shaqayntii weyday ayaan ka hadlay mar labaadna waxaan ka hadlay in dictatornimadii in Cismaan Geelle Arab waxaan idhi mahmaade Soomaaliyeed bay hay'ad dadku ma inay eriga anigu aan leeyahay moodeenay تسيدي لبدي قلين ميد سو قاو ريرك إما كان لا يحل لبدي بود سقاوس تسبيحي والله بأن أنا هدبي يليني وحنون بدنت إمي كان كل شيء يا إسماعيل إمي كا يسوي كوس أنا قد يسوق هاي سو قاوس لبدي قلين بي عاد كان شعبان الله digooda waraysigiisa ku dhex jira ayaa telefishinka Star weydiiyay in markii hanjabaadu soo gaadhay uu la socodsiiyay dawladda Somaliland waxana uu yiri ha sirdoonka qaranka Somaliland baan u yeeray waan u diray codadkii wax walba way haystaan TV-gana waan iga u yeeray oo imika de was daqiiqado ka hor markay fariimahan ay yimaadeen nin suxufiya baan ahay waxba ku faani maayo suxufinimada laakiin waan aqaan weygayga qaranka Somaliland iyo dawladda Somaliland gacantan ka saaray wixii lagu soo hanjabay TV-ga caalamkana waan u sheegay wixii lagu soo hanjabay waan iga idin siiyay wixii oo dhan anigu waxba ma qariyo shilina ma doono lacagna ma doono leeyimina iibsado qaranimada Somaliland waan ku dhimanaya wallahi billahi tallahi inay qaloocan Somaliland inaanan qaadanayna waa sii deynaya oo laga sheegay niman kala iyaguna toosigii marka ay gudaaden madaxweynaha gada maanto tiri madaxweynahan mujaahidka gaamuray armiyaan mujaahidan musabbix maana ka dhigay ilaahay abuurtay ba ka dhigay mujaahid siyaasadda ku gaamuray weeyaan Ismaaciil Cumar Geelow run baan ku sheegayaa waanu ku daawanaya waanu ku ogyahay bal igala hoos baxaniga dhagaxyeynta adigu soo daadiso bal hergeysa iigu keen wallahi aanan ku cabsanaynay qaran baan hoos joogaa iyaguna way ilaalada wadanka way wadaan annaguna waanu islaalina ina Axmed Cismaan Cumar Geelana run baan ku sheegayaa macaad uga hadashay aan adna tareet baan ku siinayaa arsaga wax ka qaadan dad wax ka qaadayso anigana midigu ma sameyn karaysid Maxamed Farax Bile telefishinka Star magaalada Hargeysa